asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh saaxiibayaal soo dhowaada maanta haddii alla idmo waxaan ka hadli doonaa cashar aada u muhiima casharkan wuxuu qoseeyaa inaan ogaano kombyuutarkeenna haddii caafimaadkiisu sida uu yahay applicationskiisa adeegyadiisa iyo wixiisoo dhan in virus ku jiro in hadhisku tabcaan naga tahay in baytarigu dhimanayo soo kombyuutarkaaga caafimaadkiisa si aad u ogaato waxaad imanaysaa barta ay ku taalo startida waxaa ku qoraysaa waxaa ku qortaa health haddii kalena windows security-ga ayay ku jirtaa so device performance baa ku qoran taa dhagsi markaa dhagsiiso halkanuu ku keenayaa haddii maaragtay sida kale u doonaysid waxaad ku dhufan kartaa meeshay ku taalo ee computerka maaragtay windows security-giisa ayaa soo galaysaa windows security-ga markaa soo gashana kadib halka ayaad ka arki kartaa windows security-ga halkaasa ka arki kartaa waa kan marka meesha hadda idin sheegay homeka soo gal kadib waa kan waatan bartan ku taala device performance and health sawa usoo geli kartaa sida kale waxa weeyaan halka waxaa ku qortaa windows security waa kan windows security markaa qorto windows security waxaa ku soo baxaya halkanaad imanaysaa halkana marka kasii dooranaysaa ay ku taalo device performance and health waayahay kaa markaad ku dhufato waa kuwan kuu soo baxay waxaad hubinaysaa marka koowaad haddii ay ka jirto windows time serviceska wax problema kama jiro ma jiraa wax capacityga maaragtay qaadka harddiskigaagu inuu mar walba sii yaraanayo maya isna problem kama jiro baytariga noloshiisu inay dhimanayso oo baytari cusub uu kombyuutarkaagu u baahan yahay ma jirtaa halkanaad ka hubinaysaa applications ma jiraan problem ku hayo kombyuutarkaaga ma jiro iskaanka ugu dambeeyana goormu ahaa wuxuu ahaa maantaba waa 19 bishii 3 weeyaan oo March 2021 so halkan saaxiibayaal casharkan aad ayuu muhiim qof walba ugu yahay inuu ogaado si uu ula socdo kombyuutarkiisa caafimaadkiisa waa haddii aad isticmaalaysaan waxa loo yaqaano windows 10 marka waxaan rabaa qof walba hubiyo kombyuutarkiisa caafimaadkiisa haddii arrimo jiraan suu xallin lahaa ka fikiro aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin daawashada casharkan saaxiibayaal asalaamu calaykum